قسما بمن خلق الشداد طباقا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لها قربيكو كسو دوادا وهلكي الدنيا iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsaal kaad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaan soo gudbisay islaaniga waa walaashin Xafsayid soo dhawaada meel walba joogtaan daafaca caalamka iyo gobolada Soomaaliya waxaan Allah subhanahu wa ta'ala idinka bariyaa cimro dheer cibaado suubayno Allah idin siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillah. waxaa inoo soo socday kitaabkeen imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro boqol xadiis. hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeeni maanta ugu horeen haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay please subscribe saar haddii aad horena joogto like saar u share gari asxaabtaada mahadsanid. waxaa inoo soo socday cashirkeeni imtixaanaha ahaa ee baro boqol xadiis. maanta waxaan qaadan doonaa darsigeeni 75 biidnillah. بسم الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما عمر الله كره النقضي قال وحودهاي أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنكبه nabiga wuxuu i qabtay garabka kun fi dunya kaannaka gariibun wuxuuna igu yiri adduunkan ku ahaa qof gariib ah yacni kooyta ah. tusaale ahaan adigoo maanta Nairobi aaday Ethiopia ku nool yacni kooyto meeshoo jooga yacni ku cusub oo kooyto ku ah yacni qofkaas ma sii fiirinayo ma kala aqaan yacni waa kooyto qofkaas oo caabir sabiil ama qof safar ah. tusaale adigoo maanta Nairobi aaday Uganda aaday Nairobi usii socdo kasii tagay yacni meeshuu sii aaday waa safar yacni meesha joogto waa kasii tagaysaa ma sii fiirinays maxaa yeelay waxa waaye qofkaas caabir sabiil waaye waa qof safar ah meeshoo jooga aan fiirinaynin aan daneynaynin. gariib iyo caabir sabiil way kala duwan yihiin. gariib waa qof kooyta ah عابر السبيل وقف سفر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو قبتي قربك فقال وحو نيغيري كن في الدنيا كأنك غريب أدونك كأها وقف كويتا أو عابر السبيل أم بقف سفر qof qariib ah marka lagu dhahayo tusaale ahaan waa qof maanta Nairobi jooga ku nool amba Ethiopia ku nool yacni meeshoo jooga kooyto ku ah ku cusub ma sii fiirinayo oo caabir sabiil amba qof safar ah maanta Uganda aaday waa ka sii tagaysaa Nairobi sii aadaysaa yacni safar aad tahay ma sii fiirinaysid meesha inta aaday waa ka sii tagaysaa inta sii aadaysaa safar aad tahay meesha ma daneynaysid ma sii fiirinaysid yacni qariib iyo caabir sabiil. قريب وقف كويتا عابر سبيل وقف سفر إن شاء الله waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahmi doontiin waad ku maasantahay daawashada muuqaalkayaga sidoo kale waad ku maasantahay haddii aad subscribe saartay ha ilaawin haddii aad dhameysatay muuqaalkayaga maanta inaad like saarto. guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayaga maanta waad ku maasantahay daawashada muuqaalkayaga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته. استعن بالله ولا تعجز.